Hello, welcome to lesson 2. Kusoo dhawaada cashirkeena labaad. Cashirkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay at the airport. Markii lagu sugan yahay garoonka diyaaradaha at the airport. Lesson 2. Lesson 2. cashirka labaad. At the airport. Wow, there are a lot of people here. Dad badan ayaa halkan jooga. There are a lot of people here. Waxaa jira dad badan oo halkan joogo. I need to check in. I need to check in. Waxaan u baahanahay in aan hubiyo ama aan jeegreeyo for my flight. Duulimaadkayga. For my flight. Excuse me. Excuse me. Iga raali noqo. Do you know? Ma garanaysaa where I can check in? Halka aan ka hubinayo ama aan ka jeegraynayo for my flight. Duulimaadkayga. Excuse me. Iga raali noqo. Do you know? Ma garanaysaa where I can check in? Halka aan ka hubinayo for my flight. Duulimaadkayga. Waa loo jawaabay. Su'aashii oo weydiiyey ayaa loogu jawaabay. You need to walk. You need to walk. Waxaad u baahan tahay inaad socotid. You need to walk straight down. Halkaas hoose ee tooska ah ayaad aadaysaa. Then intaa kadib turn left. Dhanka bidix u leexo. Turn left. Dhanka bidix u leexo. You need to walk straight down. Waxaad u baahan tahay in aad halkaa tooska ah ee hoose aad aado. Then turn left. Kadibna u leexo dhanka bidix. You will see. Waxaad arki doontaa. You will. Meeshaas will ayaa ku jirto. Qaab markii la soo gaabiyo ayaa loo qoraa will, sidaa baa loo qoraa. You will see. Waxaad arki doontaa the check-in counters. Counterska meesha waxa lagu jeegreeyo ayaa waxaa la yiraahdaa counters. You will see. Waxaad arki doontaa the check-in counters. Meesha waxa lagu jeegreeyo ayaad arki doontaa. In front of you. Oo hortaada ayay kaa soo qabanaysaa. Tilmaamtii ayaa la wadaa. You need to walk straight down. Waa inaad halkaa tooska ah ee hoose aad aadaa. Waa loo tilmaamayaa. Then left. Kadibna u leexo dhanka bidix. Dhanka bidix. Left waa bidix. You will see. Waxaad arki doontaa the check-in countries. Counterada ama meesha waxa lagu hubiyo ee lagu jeegreeyo qofka elaboorka markii uu dhoofayo oo baasaboorkiisa lagu jeegraynayo ayaa countries la yiraahdaa. In front of you waxayna kaa soo qabanaysaa la yiraahdaa hortaada ayay ahaanaysaa. Haddaad halkaas toose
halkaas tooska ah ee hoose haddaad aado bidixna aad u leexatid countrieska meesha waxa lagu hubiyo waxay kaa soo qabanayaan hortaada. In front of you waa adiga hortaada. Thank you for your help. Waad ku mahadsan tahay caawintaada. Thank you for your help. Waad ku mahadsan tahay caawintaada. Su'aal baa la weydiiyey. Where are you flying to? Qofkii u tilmaamayay ayaa su'aal weydiiyey. Waxaa la yidhi where are you flying to? Xaggee baad u duuleysaa? Flying waa duulimaad xagga diyaaradaha. Waa safar xagga diyaaradaha markaad u safraysid. Markaad diyaaradaha ku safraysid ayaad isticmaalaysaa fly. Xagga gaadiidka kale markaad ku safraysidna travel baa la yidhahdaa. Where are you flying to? Xaggee baad u duuleysaa oo u socotaa? I am flying to Rome. Waxaan u safrayaa Rome. I am flying to Rome. Is that the capital of Italy? Is that the capital of Italy? Ma caasimadda Talyaaniga ba? Ma caasimadda Italia? Yes, that is right. Haa, waa taas weeyaan. Ama haa, waa sax. Yes, that is right. Haa, sax. Waa taas. Oo micnahu waa caasimadda Talyaaniga. Yes, that is right. Su'aal buu ku sii xijistay. Wuxuu yidhi where are you flying to? Xaggeed u duuleysaa? Where xaggeebaa are you flying to? Aad u safraysaa ama aad u duuleysaa? I am going to London. Waxaan u socdaa London. For wedding. Aroos ayaan u socdaa. I am going to London for wedding. Aroos ayaan ugu socdaa London. Ama waxaan u safrayaa London oo waxaan u socdaa for wedding. Aroos. That is exciting. That is exciting. Aad bay u farxad badan tahay. Exciting waxaa la yidhahdaa xamaasadna waa la yidhahdaa. Farxadna waa la yidhahdaa. Bogitaan. Markii aad wax u bagbagaysid ama aad ugu faraxsan tahay ama aad xamaasaysan tahay. Exciting. Marka qofkii markuu yidhi I am going to London for wedding. Kii kale wuxuu yidhi that is exciting. Waa farxad. Wuxuu ku sii daray marka hadalkiisa well hagaag. I better get going. Waxaa ii wanaagsan get going check in closes. In aan iska soo gabagabeeyo checkinka ama hubinta oo la hubinayo baasaboorka iyo boorsooyinka. Waxaa ii wanaagsan I better get going check in closes 40 minutes 40 daqiiqo before the flight. Duulimaadka ka hor. Well hagaag. I better get going check in. Waxaa ii wanaagsan in aan going check in closes
in aan iska soo gabagabeeyo ereyga close mar wuxuu noqdaa xiritaan wax la xirayo sida albaab ama daaqad marna wuxuu noqdaa close wax kuu dhow aan kaa dheereen my close friend saaxiibkayga igu dhow marka wuxuu leeyahay waxaa ii wanaagsan inaan iska soo gabagabeeyo maanta marka closes waa soo gabagabeyn inaan iska soo gabagabeeyo ayaa ii wanaagsan 40 minutes 40 daqiiqo before the flight duulimaadka intaanan duulin ka hor inta la duulin duulimaadka intuusan dhicin ka hor 40 daqiiqo inaan checking iska soo gabagabeeyo ayaa ii wanaagsan wuxuu yimid halkii wax lagu jeegaraynay meeshii ama goobtii ee countrieska ahayd check in countrieska baasaboorada iyo lagu jeegareeyo iyo alaabta asidatid ayuu yimid hi there I would like to check in for my flight I would like waxaan jeclaan lahaa to check in aan jeegareeyo ama saxo ama aan hubiyo for my flight duulimaadkayga waa loo jawaabay good morning subax wanaagsan ayaa la yiri ereyga hi there oo isaga isticmaalay markaad meel timaadid ayaad isticmaalaysaa inta hadalkaada bilaabin ka hor ayaa inta badan la isticmaalaa hi there haye I would like waxaan jeclaan lahaa ayuu yiri to check in inaan hubiyo for my flight duulimaadkayga waa loo jawaabay waxaa la yidhi good morning subax wanaagsan where are you flying today xagee ku safraysaa maanta where are you flying today xagee u duulaysaa xagee baad u duulaysaa ayaa la yidhi wuu ka jawaabay wuxuu yidhi Rome uu sii raaciyay Italy Roma waa caasimadda Talyaaniga ama caasimadda Italy Rome Italy waxaan u duulayaa waa la soo gaabsan karaa I am flying intaa dhihi lahayd where are you going or where are you flying to Rome Italy wuu ka jawaabay may I see your passport please ma arki karaa baasaboorkaada marka qof saasoo kale leh keen baasaboorkaada kale la micno tahay laakiin si codsi oo wanaagsan baa la yidhi ixtiraam ku jiro may I see your passport please fadlan ma arki karaa baasaboorkaada sure ha maxaa dhaca waa hub ereygan sure waxaan u isticmaalaynaa markii aan wax xaqiijinayno ha here you go ho here you go ho how many bags are you checking in imiso boorso ayaad hubinaysaa ama aad jeegaraynaysaa bag waa boorso bags waa markay jamac yihiin plural I have just got this one suitcase I have just got waxaan wataa ama aan haystaa this one suitcase shandadan oo keliya inaha shandadan keliya ayaan wataa this one suitcase waxa weeyaan shandad waa boorsada weyn ee wax lagu rito I have just got this one suitcase waxaan sitaa ama aan haystaa shandadan keliya okay please place your suitcase on the scale fadlan waxaad dhigtaa boorsadaada ama shandadaada place waa dhigid
Your suitcase. Shandadaada waxaad dhigtaa on the scale. Scale waxay maanta micnaheedu tahay halka markii aad elboorka aad ka baxaysid bahalka wareeganayo ee boorsooyinka la saaro kaa waxaa la yidhahdaa scale. Marka waxaa la yidhi scale-ka saar shandadaada. Kadib su-aal buu weydiiyey, wuxuu yidhi I have a stopover in London. Waxaan leeyahay stopover. Stopover waxaa la yidhahdaa halka ay diyaaradda ku hakanayso kadibna ay diyaarad kale ka qaadayso. Laba nooc ayaa loo kala saaraa, midna waxaa la dhahaa transfer, midna waa stopover, joogsi. Waxaan London ayaan ku hakanaynaa ayuu yidhi stopover. Will I need to collect my luggage there? Miyaan u baahanayaa markaa in aan luggage waa boorso ayadana shandad ayay la micno tahay. Shandadiina halkaa ka soo qaato collect inaad ka soo qaato miyaan u baahanayaa maadaama aan stopover ama aan hakad aan ku galayno London. Miyaan u baahnaanayaa anigu markaas in aan soo qaato boorsadayda maadaama aniga Talyaaniga aan u socdo diyaaraddan ay ku hakanayso London. Will I need to collect my luggage there? Halkaa ma ka soo qaadanayaa shandadayda ama boorsadayda? Waa loo jawaabay, waxaa la yidhi no, maya. Your luggage will be transferred. Boorsadaada waxaa loo gudbinayaa will be transferred to Italy. Waxaa loo gudbinayaa Italy ama Talyaaniga ayaa loo gudbinayaa. So sidaa daraaddeeda you will only need waxaad u baahnaanaysaa oo keliya you will only need waxaad u baahnaanaysaa oo keliya to pick it up in aad soo qaadatid. Pick it up waa soo qaadasho. In aad soo qaadatid when you get to Italy markii aad tagtid Italy ama Talyaanigu marka aad tagtid ayaad soo qaadanaysaa boorsadaada. Here is your passport. Waa kan baasaboorkaadii. Here is your passport. Waa kan baasaboorkaadii. And your boarding passes. Boarding passes waxa weeyaan waa warqadda shuruudada leh ee lagu dejiyo boorsada. Rasiidkana aad gacanta ku qaadanaysid waa taqaanin ayaa filayaa boarding pass. Marka waxaa la yidhi here is your passport. Waa kan baasaboorkaadii. And your boarding pass iyo boarding passkaadii waa kan. Your flight leaves duulimaadkaada wuxuu ka baxayaa leaves from gate B19 albaabka oo lambarkiisu yahay B19 ayuu safarkaadu ka baxaya. waa taqaanaan qolo walba waxay ka baxdaa markii ay safrayso elboorka albaab. marka gate waa albaab, waa ganjeel ama waa albaab macnihiisu. B19 and it will begin wuxuuna bilaabanayaa bixitaanka markaasi boarding in less daad gurayo oo inta boorsooyinka la saarayo la baxayo waxay bilaabanayaa at 11:12 am. waa 5:25 daqiiqo ee am ah ayuu bilaabanayaa. waa loo sheegay waqtigii. Your flight leaves from gate B19.
flightkaada wuxuu ka baxayaa albaabka 19 ee ba, and it will begin boarding. Boarding waa daadgurayn. Daldalidda ama daadgurayntuna waxay bilaabanaysaa at 11:25 am. 11:25. saacaddu markii ay daqiiqadaha la socdaan waxaa loo isticmaalaa past. marka ay dhiman yihiin daqiiqad ay dhiman tahayna waxaa loo isticmaalaa to. hadda waa 11:25 daqiiqo. sidee aan ingiriis ku dhahaynaa? 11:25. Your seat number is 14B. Your seat number. kursiga ama fadhiga nambarkaadu le kursiga nambar buu leeyahay markii duulimaadka diyaaradaha la raacayo. fadhigaadu ama kursigaadu nambarkiisana waa 14B. Your seat number is 14B. You will need, waxaad u baahan tahay markaa adigu, to go through security next. halkii checking-ka way ka soo dhamaatay, waxaa la leeyahay waxaad u baahan tahay toos inaad u aado. You will need to go through security next. waa qaybta security-ka, waa inaad toos u aadaa. waa meeshii lagu jeegaraynayay suumanka iyo saacadaha lagu furay ayaa laga wadaa, markaasaa lagu sii tilmaamay. informationka waa lagu siiyey xilligaad baxaysid dhammaan kulli waan ku baranay, erayo badan baan ku baranay. You will need, waxaad u baahnaanaysaa to go inaad aado through si toos ah security next. halkan markaad ka tagto meesha xigto aad aadaysid waa security-ka. Okay, thank you for your helping. sidaa buu yiri. hagaag, waa ku mahadsan tahay caawinta ayaa caawinaysay. Thank you for your helping. caawintaada waad ku mahadsan tahay. halkaas ayuu ku egyahay cashirkii labaad ee ciwaankiisu ahaa at the airport. markii airportka lagu sugan yahay, erayada la isticmaalayo iyo habka loo hadlayo. intaa ayuu ku egyahay lesson 2. lesson 3 ayaan qaadan doonaa nextiga. intaas ayaan barnaamijkeenii cashirkeenii kusoo gabagabaynay. cashiradu waxa ay ku socon doonaan si taxana ah, iyagoo wato macal graamarkoodii, ku hadalkoodii oo dhan hadduu Ilaahay yiraahdo.